Iiraan oo weerar culus ku qaaday Israa'iil iyo gacanka Carabta, ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsata shidaalka iyo khutul daruuriga oo lagu eedeynayo in ay sare u qaadeen qiimihii caadiga ahaa, iyaga oo ku andacoonaya in saameyn ballaaran uu ku yeeshay dagaalka Bariga Dhexe. Qaraxyo waaweyn oo laga maqlay magaalooyinka Xayfa iyo Tel Aviv, dad fara badan oo Israa'iiliyiin ah oo weeraradaasi ku waxyeeloobay, mas'uuliyiin dowladeed oo weli lagu la'yahay nolol iyo geeri. Haddaba xogihii ugu dambeeyay ee dagaalka Bariga Dhexe iyo waxyaabihii ka soo kordhay ayaan qaybtan isku dultaagi doonaa ee soo dhowaada saaxiibayaal. Aynu ku bilowno marka hore. Iiraan ayaa weerar culus ku qaaday Israa'iil iyo gacanka Carabta. Saacadihii u dambeeyay, Iiraan ayaa qaaday mowjado cusub oo weerar ah oo ay ku beegsatay bartilmaameedyo ay Bariga Dhexe ku leeyihiin Israa'iil iyo Mareykanka. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegtay in duqeyntan ay tahay tii ugu xooga badnayd uguna cuslayd tan iyo markii uu bilowday dagaalka, sida ay warisay wakaaladda wararka AFP. Israa'iil ayaa sheegtay inay aqoonsatay gantaalada laga soo tuuray dhanka Iiraan, balse markii dambe waxa ay ku dartay in muwaadiniintu ay ka baxaan meelaha ay gabaadka kaga jiraan. Waxaa la tilmaamayaa in duqeymahaasi ay si culus u saameeyeen magaalooyinka Xayfa iyo Tel Aviv oo laga arkayay qiiq iyo uuro madow oo cirka isku shishareertay. Si lamadana mar dambe ayaa la arkayay muuqaallo qaraxyo iyo jugug culus oo ku dhacaya magaalooyinkaasi. Waxaa la soo warinayaa ilaa iyo iminkadan in ay bartilmaameedsadeen Iiraan qaybo ka mid ah dowladda Israa'iil iyo mas'uuliyiin sare, kuwaasoo ilaa iyo hadda nolol iyo geeri lagu la'yahay. Shacab fara badan ayay haleeleen gantaaladaasi ayaa la soo warinayaa. Wakaaladaha wararka ee ka soo baxa gudaha Israa'iil ayaa sheegaya in Iiraan ay si joogto ah u beegsanayso xarumaha ay dadka rayidka ah ku nool yihiin. Sacuudigana waxa uu sheegay in uu qabtay oo uu hawada ku burburiyey 2 diyaaradood nooca aanan duuliyaha lahayn ee ismiidaamiya, kuna wajahnaa goobo shidaal laga soo saaro. Dhinaca kalena, sariga digniinta ayaa laga maqlay dalka Baxrayn oo martigeliya saldhig weyn oo ciidamada Mareykanka ay halkaasi ku leeyihiin, waxaana la soo warinayaa in halkaasi ay gaareen gantaalo Iiraan ay halkaasi ku weerartay. Iiraan waxa ay marba marka ka dambeysa samaynaysaa bandhigyo cajiib ah, iyada oo saameyn xooggan iyo dharbaaxo aanan laga soo waaqsan ku dhufanaysa dalalka Israa'iil iyo Mareykanka. Dagaalkana waxa uu galay maalinkii 13aad oo xiriir ah, isla markaana Iiraan ay adeegsanayso droniska nooca ismiidaamiyey aan dib u soo laaban, iyo si la mid ah gantaalada noocyada dheereeya ee halista badan. Sidoo kalena, ganacsatada Soomaaliyeed ayaa lagu eedeynayaa in ay noqdeen kuwo dhiig miirata ah, kana faa'iideysanaya dagaalka Bariga Dhexe, iyaga oo ku andacoonaya in saameyn lixaad leh uu ku yeeshay dagaalkaasi Soomaaliya, gaar ahaan marka loo eego qiimaha sare ee shidaalka. Dagaalka inta uusan bilaabanin, magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, liitarka shidaalka ayaa lagu kala iibsanayay $0.65 ilaa iyo $0.70. Hase ahaatee, maanta waxa uu shidaalka kor u dhaafay $1.70, taasoo ka dhigan in qiimaha shidaalka ee Soomaaliya uu kor u kacay wax ka badan 50%. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuwa isticmaala gaadiidka dadweynaha iyo darawallada kaxeeya gaadiidka, isla markaana noloshooda ay ku tiirsan tahay, ayaa si weyn kaga andacoonaya ganacsatada Soomaaliyeed. Wararkii u dambeeyay ee aynu helnay run ahaanshiyaha in dagaalka Bariga Dhexe ka soconaya uu saameeyey Soomaaliya ayaa noqotay waxba kama jiraan, iyada oo dowladaha Kenya iyo Itoobiya iyo Soomaaliya ay si isku mid ah shidaalka ugaga yimaadaan dhinacyada khaliijka. Haddana ma jiraan sare u kac laga dareemayo dalalka jaarka la ah Soomaaliya ee Itoobiya iyo Kenya. Muwaadiniinta dalalkaasi ayaa si caadi ah waxa ay shidaalka ugu kala iibsanayaan sidii markii horeba ay ku iibin jireen, mana jiro sare u kac ilaa iyo maanta oo uu dagaalku galay maalinkiisi 13aad ku yimid, halka Soomaaliya maalin walbaba uu kor u kacayo wax ka badan $0.2. Waxa ayna ka dhigan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka gaabisay in ay xakamayso saamiyada suuqa iyo dhaqdhaqaaqyada sixirka. Dadka falanqeeya arrimaha dagaalka Bariga Dhexe ayaa sheegaya in ganacsatada Soomaaliyeed ay maalinka uu bilowday dagaalka ilaa iyo maanta ay mar walbaba kor u qaadayeen qiimaha
markaasi qutul daruuriga iyo saliidaha shidaalka iyo saliidda kale ee caadiga loo isticmaalo, kuna darayeen lacago kor u dhaafaya $1.1 ilaa iyo inta u dhaxaysa $1.2. gaadiidleyda magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya ayaana dowladda ugu baaqay in ay saamayso islamarkaana ay farageliso dhaqdhaqaaqyada ganacsatada sida qayrul macquulka ah dhaqaalaha kor ugu qaadaya iibsiga shidaalka, taasi oo mar dambana kalifi karta in ay joogsadaan isu socodka gaadiidka, maadaama gaadiidleyda iyo dadka markaasi raaca gaadiidka iyaguna ay ku khasbanaan doonaan in ay lacagaha ku kordhiyaan, taasi oo saameyn dhaqaale oo aan laga waaqsan ku keeni karta Soomaaliya. geesta kalena markabka qaada xamuulka oo ku dhow marinka Hormuz ayaa lagu dhuftay wax la rumaysan yahay inuu yahay gantaal ama walax qarax leh oo aanan la garanaynin meel qiyaastii 46 kilomitir una jirta 25 mayl gudaha badda xeebaha Imaaraadka Carabta, sida ay sheegtay hay-adda kormeerka maraakiibta ee UK. kabtanka markabka ayaa sheegay in markabka ay waxyeello soo gaadhay, balse dhammaan shaqaalihii saarnaa ay badqabaan islamarkaana la hubiyey xaaladooda sida ay xaqiijisay UK Tom. faahfaahin dheeraad ah weli lagama hayo oo ku saabsan heerka waxyeellada, halka mas-uuliyiinta Britain ay bilaabeen baaritaan ku saabsan dhacdadan markabkaasi soo gaartay. geesta kalena 5 xubnood oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee gabdhaha Iiraan ayaa helay fiisooyinka magangelyanimo oo ay siisay Australia kadib cabsi laga qabay ammaankooda markii ay diideen in ay kor u qaadaan astaanta qaranka ka hor ciyaarta. 2 xubnood oo kale ayaa sidoo kale aqbalay in ay dalka sii joogaan. si kastaba mid ka mid ah ciyaartoydii la siiyey magangelyada ayaa go'aansatay in uu dib ugu laabto Iiraan, inkastoo aanan la shaacinin aqoonsigiisa rasmiga ah. warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegtay in Iiraan ay weerar gantaalo aad u culus ah ku qaaday saldhig militari oo uu Mareykanka ku leeyahay bariga dhexe. bayaan ka soo baxay Iiraan ayaa lagu sheegay in la bartilmaameedsaday saldhigga Al-Udeyd ee Qatar ku yaala, Kaam Aribjan oo Kuwait ku yaala, iyo saldhigga Arir ee Ciraaq. bayaanka Iiraan ayaa sidoo kale sheegay in duqeymaha gantaaladan ay burburiyeen kaabayaal dhaqaale oo militariga Mareykanka halkaasi ku leeyahay. Donald Trump oo goor hore hadlayna waxa uu sheegay in Iiraan ay si joogto ah u bartilmaameedsanayso saldhigyada Mareykanka, waxa uuna ugu hanjabay in ay ka shalayn doonaan. si la mid ah, Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Iiraan ay si ula kac ah u beegsanayso dadka rayidka ah, taasina ay noqon doonto mid ay ka shalaayi doonto. Iiraanna waxa ay tilmaamtay in ay sii laba jibaari doonto marba marka ka dambeysa dagaalkeeda ku aadan Israa'iil iyo Mareykanka.